Libaaxa waa nooc ka mid ah noocyada xayawaanada ugu halista badan dunidan. Waxa uu leeyahay muruq jidh, wadnaha oo qoto dheer, madax gaaban, wareegsan, dhago wareegsan, iyo sidoo kale timo badan oo guud ahaanba ku gadaaman jirkiisa. Libaaxyadu ragga ah ee qaangaarka waxay leeyihiin muunad caan ah, iyada oo dherer madax ilaa iyo jireed isla markaana gaaraya 184 ilaa iyo 208 sentimitir, 72 ilaa iyo 82 inji ay ka weyn yihiin dhadiga dhererkoodu uu yahay 160 ilaa iyo 184 sentimitir, 63 ilaa iyo 70 inji. waana nooc ka mid ah xayawaanada ugu halista badan. Hanka libaaxu waxa uu ka kooban yahay dhowr arrimood, waxaana inta badan ay ugaarsadaan xayawaanada duurka kula nool. Inkastoo oo libaaxyadu qaarkood ay wax cunaan marka ay fursadda ay helaan, oo loo yaqaano in ay ugaarsadaan dadka iyo weliba xayawaanada kale ee ka itaalkaroon yihiin. Haddana noocyada qaar ee libaaxyadu sida caadiga ah ma sameeyaan ugaarsi, oo waxa ay qaarkood yihiin kuwa lagu xanaaneeyo goobaha ganacsiga. Caadi ahaan libaaxu wuxuu degaa dhul daaqsimeed, laakiin kama maqna kaymaha hufan, badanaa ayna ku diirsan tahay bisadaha kale ee waaweyn. Laakiin markii la silciyo waxa ay la qabsanayaan in ay firfircoonaadaan habeenkii iyo weliba fiidkii. Libaaxu waxa uu u dhexeeyaa bartamaha Aasiya, koonfurta bari ee Yurub ilaa iyo Afrika, laakiin maanta waxaa lagu soo koobay dadyow kala qaybsan oo ka hooseeya Saxaraha Afrika iyo galbeedka Hindiya. Inkastoo oo sababto hoos u dhaca aanu si buuxda loo faahfaahin waayadii ugu dambeeyay, luminta deegaanka iyo sidoo kale isku dhaca aadanaha waa sababaha ugu waaweyn ee walaaca laga qabo. Mid ka mid ah astaamaha xayawaankan ee sida weyn loo aqoonsan yahay ee dhaqanka aadanaha, libaaxa ayaana si ballaaran loogu sawiraa farshaxanno iyo sidoo kale sawiro calanka waddanka, suugaanta casriga iyo sidoo kale filimada. Dadka badanaa libaaxyadu waxa ay ku hayaan meheradaha lagu ganacsado tan iyo waqtigii boqortooyadii Roomaanka, waxayna ahaayeen noocyo muhiim ah oo loo doonayay in lagu soo bandhigo beeraha xayawaanaadka ee adduunka oo dhan ilaa iyo dhammaadkii qarnigii 18aad.